نقوم الصريح يعني قف وركيسو عد يهي وايو حق يدول يدهي إنا ديدid waxaadan rabin ama inaad ogolaatid waxaad rabtid maxaa yeelay waqtigaaga hibo uma lahan dad kale maalkaaguna deeq uma ahan qofna adigana uma tihid iyaga shaqaale adigu ma tihid shumaca iftiinsanayaan mugdiga markii uu iftiinku dhashana ay iska daminayaan dheh maya xitaa haddii ay dhibayso iyaga jawaabta ah maya way dhibaysaa qofka aad ku dhahdid balse waa jawaab dhammaystiran oo aanan lahayn wax laalaaba ha noqon mid aamusan oo ku dhaqma kuwa kale waxa ay ku dhawaaqayaan oo keliya kadibna wax walba ay dhahaan dhahaya haa ama haye xitaa haddii uu arrinku dhib ugu sugan yahay isaga haddaba ay dhegayso qofka mar walbaa dhaha haa wuxuu weynayaa sharafta naftiisa qofkii dhahaa mayana wuxuusan rabin wuxuu ku khasaarayaa kaalmada dadka kale balse qofkii dhahaa laga yaabaa wuxuu ku khasaarayaa labadaba haddaba dheh maya waxaadan rabin waxaad weynaysaa kaalmada dadka kale balse ma weynaysid sharafta naftaada haddii aad maanta ka ogolaatid dadka waxaadan rabin adigoo ixtiraamaya rabitaankooda haddaba beriha ka ogolaanin waayo ogolaanshiyahaagoo bataa waxay hoos u ridaysaa karaamadaada qof walbaana wuxuu kuu arkayaa inaadan lahayn wax ra'yi ah ama diidmo ah qaarkood waxay aqbalayaan waxaysan raalli ka ahayn nafsadooda si ay u raaligeliyaan asxaabtooda walaal qofka u sheeg runta ha ka sheegin naftaadana been oo waxaadan rabin dheh ma doonayo adigu ma tihid qof la soo istaajinayo maxkamad kadibna lagu xukumayo runtii uu sheegay waxaadan rabin uma baahna caddayn keliya waxaa ku filan inaad tidhaahdid ma doonayo waxaa dhici karta inuu ku soo wacayo saaxiibkaaga adigoo ku guda jira diyaarinta casharadaada kadibna wuxuu kaa codsanayaa inaad israacdaan oo aad wakhti soo wada qaadataan haddaba waxaa kuu bannaan laba shay midkood inaad ugu jawaabtid oo kale ah haa waan ku raacayaa ama inaad dhahdid maya oo wax ayaan akhrisanayaa haddii aad ku dhahdid haa waan ku raacayaa haddaba waxaad maya ku tiri hadafkaaga oo ahaa inaad waxbarashada heer ka gaartid inaad maya dhahdidna kama dhignaa inaad waxasaysid ama aad wax baqiilaysid waa inaad taqaanid jawaabta ah maya iyo xilligaad dhehaysid tusaale ahaan iyadoo uu qofkaaga baahan yahay caawimaad adigana aad awoodid markaasi waa inaadan ku dhihin maya ood caawisid intii karaankaaga ah baro xilliyada ay munaasibka ku tahay inaad tidhaahdid maya qofka haddii aad mar ilaa 3 mar aad ku dhahdid maya qofkaasi wuxuu ogaanayaa inaadan ahayn qof lagu adeegan karo noqo qofuu warkiisu cad yahay oo u sheeg dadka waxa aad doonayso iyo waxaad dhibsanayso markaasi waxaa dhaba inay dadku ku jeclaanayaan sidoo kale adigu kalsooni iyo farxad ayaad ku dareemaysaa sidaasi ku dheh maya xilligeeda ku dheh haana xilligeeda cidday doonto ha ahaato markay doontana ha ahaatee balse waxaa kala duwan oo keliya sidaad ugu kala dhahayso dadka marka uu qofku waalidkaaga yahay ama qof kaa weyn ama saaxiibka balse waxaa muhiima inaad noqoto qof sheegi kara waxa gudihiisa ku jira markaasi dadku waxay garanayaan waxa suurtagalka kaa ah wixii aan suurtagal kaa ahaynna kuulama imaanayaan halkaasi ayaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh